daawada halka ku suganahay waa teenada Afasioni oo goordhow ay ka qabsoomi doonto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa soconaysa qabanqaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro sidii doorashadu ay ku qabsoomi lahayd iyadoo halkan ay soo gaareen guddiga doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa sidoo kale halkan soo gaaraya kuwaas oo maanta codkooda dhiibanaya waxaa ka qayb geli doona munaasabadan doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacbiga Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo gudoomiyaha Cabdi Xaashi oo ah gudoomiyaha aqalka sare sidoo kale waxaa ka qayb geli doona doorashadan madaxweynaha dowlad goboleedyada kuwaas oo iyaguna halkan qayb ka noqon doona iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marti kale oo heer caalami ah iyo kuwa kale ayaa lagu cazumay ka qaybgalka doorashadan kuwaas oo iyagu halkan kaga qayb gali doona doorashada xildhibaanada ayaa hoolka soo gaaraya kuwaas oo durba bilaabay inay yimaadaan hoolka si ay loo guda galo qabanqaabadii ugu dambeysay oo loogu jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida guddigu ay shaaciyeen ilaa 38 musharax ka badan ama 39 musharax ayaa u tartamaya xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo boorarka musharaxiinta halkan lagu soo dhajiyay dhamaantood ayna halkan imaan doonaan waxaa la diyaariyay kuraastii musharaxiinta iyadoo qabanqaabada ay si wanaagsan ku socoto ciidamada booliiska oo iyagu gacan ka helaya kuwa howlgalka kumeel gaarka ah ee midowga Afrika ADMIS ayaa si weyn u sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso iyo wadooyinka soo gala iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamadu ay aad u hubinayaan dhammaan waxaa hirgalay harbraacyadii ay guddiga doorashooyinka dejiyeen oo ay ka mid tahay in hoolka aan la soo gali karin telefoonada kuwaas oo kol hore ay guddigu shaaciyeen isla markaana maanta si rasmi ah u dhaqan galay waxaa la filayaa maanta Soomaaliya in ay wajahayso marxaladii ugu dambeysay dhinaca doorashooyinka taasoo la xiriirta in la dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo 4 sanaba mar la doorto taasoo dastuurka ku qoran waxaa xusid mudan in doorashadan ay tahay doorasho ay ku lamayaan musharaxiin tiro badan taasoo la filayo in waqti dheer ay qaadato maadaama wareegyo badan la isla gaari doono iyadoo oo musharaxiintu wali ay wadaan sidoo kale xodxodashadii ugu dambeysay xildhibaanadu ay ugu jiraan si ay codka kalsoonida u helaan goordhow waxaan si toos ah idinku soo baahin doonaa dhacdadan weyn ee ka soconaysa hoolka teenada Afasioni taasoo doorashadu ay ku qabsoomi doonto iyadoo wixii macluumaada wareysiyada iyo xildhibaanada imaan doona iyo martida kaleba aynu la hadli doono ayuub cabdiraxiin warbaahinta qaranka teenada Afasioni